السلام عليكم أصحاب تقاليق أدبان دي سلامية ابن آذن سواء أرنبا كالجيسي بريها كان أنيقا هالكان جاء أنكسيستي سماها أدبا دي سلامية سلام كدب شاكا دي هيا برباني دي هيا أدبا دور تعشين سلامات من كل آفات إدي جيستا بسم الله الرحمن الرحيم أنكو بلابو هذا الكيغا oo xalay arooskayga aniga iyo odagayga Xuseen arooska ugu talagalnay oo isla ka dhigno sarteedii sidii ay waxaayeen isida social media laga wado aniga inaad rabtaa inaad dhageystaan soo idin bilaabaya aan ku bilaabo magaca Ilaahay bismillaahir rahmaanir rahiim wax badan ka oran maayo muhiimada aan rabo inaan dhaho waa sidoo aroosku xalay ahaa ku bilowday iyo sida aan anigu asanasteexa ahaan oo aroosadii ahayd aan ka aamisanahay oo aan qabo sidoo ku bilowday suuq badan bay ahayd sidii loo soo agaasimay family and friends oo garab fiican iga siiyay waligay aan hilmaami doonin still now aan aamisanahay arooskii si qurux badan ku dhamaaday لأنه ضدك قارئ وملاين إني سخلدن وكل ما ذي سخلدن أنا يقولوا ما دمانو ومد إتشعل ببعدي ماشى سومالي محمد أنتي دبد يدلك بتشوكتي بوحربين إنك طيب يمتقنا مرخانتك أحدان أنا يقول قبر سومالية كسكو قبر فنانة ذان هاي برشة سومالي مقعبان كلها هاي وحنا نقولها هاي إني آد يتشعليهن ومد الصوماليات إنت هنشعلها إنك بدن يتشعليهن إنت إيتي من tay jecelihiin in ka badan anna waan jeclahay iyaguna waa ogahay in jecelihiin waxaan aad iyo aad waliba aan ka raali gelinayaa dhammaan intii madashaas ku sugnayd ee xalay isu soo qaban qaabisay ee meesha timi ee meeshu deeq weeday horta 100% apologize baa idinka siinaya talabaad waxaan rabay aadna waan uga xumaynay dhammaantii soo wada gelin waxa soo dhanna waa jacayl waa in aan bulshada dadka kale gabadhaha kale in aan dheerahay ayaan isku arkaa sidii aad xalay igu soo baxdeen oo darabteer arooskayga inaad ka soo qayb gashaan runtiina waa qayb wadnahay kamid ah ayaa waxa idin leedahay waan idin waa alshan wadnahayga idin dabacsan sidaas quruxda badan aad u soo wada baxdeen dhammaantiina wada qurux badnaydeen waan kaga mahadcelin warkiyo koona kombo ku jira hal mid baa midda kale rabeen ku darso xitaa dad badan baa waxay walwalayo islaay gabadha qalbigeeda miyaa wax no sidee ay ahayd oo ku qanacsanahay waayo wax walba qadarta Allah ka weyn adigu gooni baad u tashanaysaa ilaahayna gooni buu u tashanayaa marka marnaba wax walba sidii ilaahay kuugu talagalay u dhacdo alxamdulillah ma sharaysto si qurux badan anu waxaan u arkay kaliya ummad Soomaaliyeed oo jecel inay meesha soo buuxsameen oo ay halka yimaadeen oo mid walba rabay inuu marxaanti iyo xaadir ka ahaado walaashood ama fanaanadooda ama gabadhooda oo deema taqaanaa aqal galaysa insha Allah biidnillaahi kariimna mana jecel ma taqaanaa wax negative oo soo qoraa ama social media ama meel Facebook yar ama ma adoo aan waqtigeega ku lumiyo ama indhahayga aan waqti ku siiyay ku fiirsada ama ku aqriyo waxa negative ka waxaan jeclaa inaan iska dhaafiyo alxamdulillah rabbil alamin more a negative dhageysatid more a waxun aad indhahayga raadiyaan adigana kuma fiicno dambi bay kugu tahay caafimaad ahaan kuma fiican maskixiyan marka muhiimadan ka hadlay waxay tahay وهذا آمننا وحليدي شيء علشان وقت حسيننا هم وضعه أنا جاء أروس كلها أروس الديبانها سوى وحود عن قف كستو ماشي شوقي هدوهم كشجو وأجيهاي هذا الكيك أنا ماشي لتاجنها قفهم حماته وقبنا مجرته حماته ماشي كان على هاي Soomaali diyo farabadatay dadka shicibka farabatay mooyaane wax kale oo dhibaato dhacday maysan jirin social media haas marka waxa idin sheegaya waxa laga sheegay carshan wax runtii muhiim ah ama run ah may ahayn marxaantu waxa ugu filan intii joogtay iyo aniga oo ah gabadhii aroosaysi marna gabadhii fanaanada ahay فناد بنكها ما فناد كم الرصد ديوانا انت صنكوا كذا anyway هذا الكيو كوم بكتيرة وحيد الله ولا وحي نيجاتيف
iyo wixii xunba shaydaan bay u sugnaatay wixii wanaag ah iyo caqliga saliimka ah iyo mataqaanaa iyo sharaftuba oo wax bini aadanka alla ku ciseeyo marka alxamdulillaah rabbil caalamiin anigu habbi baan ahay dadkii meesha joogay habbi bay ahaayeen soomaalidii dadkii jacaylkooda iyo wanaagooda iyo sharaftooda baa meesha wada deeq weyday aad inay ii jecel yihiin baan ogaaday ummadda Soomaaliyeed aad baana idin jeclahay hadda kadibna waa ka soo hadli doonaa